السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لمان walaalahayga Soomaaliyeed inta beeshkayga ku xiran iyo inta fiidiyowgan uu soo gaari doono codkayga dhageysan doonta. Bacda salaan qiimo iyo qaayo mudan walaalayaal, maantay waxaan doonayaa raali gelin buuxda asxaabteyda beeshkayga ku xiran inaan iga gudoomaan taasoon cudurdaar uga dhigay daruufaha adduunka ee soo wajaha insaanka, taasoo inaan ayaamahan waxna nii soo gelin beeshkayga. aad iga raali ahaado. intaas haddaan ka gudbo walaalayaal, maanta waxaan nii hayaa qodob xasaasiya, aad xasaasi u qodob afkeena aan ka dooranayna xataa inaan soo hadal qaadno, qodob ay culimo iyo caamaba ama kaag iyo fajac ku riday, qodob shacab iyo siyaasiba dhagay ka fureysteen oo afkiina juqda uu gabay. qodobkaasoo walaalayaal kasoo yeeray uu yahay walaasheen ama hooyo Soomaaliyeed, ama haddaad sida u dhigtiinba islaan Soomaaliyeed oo xil ka haysa dowladda Soomaaliya, xil aad u weyn ka hayso gudoomiyaha guddiga doorashada hooyadan ama islaantan Soomaaliyeed oo magaceedu uu yahay Faadumo Yarey ayaa ayaantii dhaweyd sidaad arkayseen baraha bulshada waxay soo dhigtay sir jaraa'id ee ayada qabatay. sir jaraa'idkaas walaalayaal wuxuu nagu noqday sir jaraa'id oo ama kaag nagu riday adduunyoo dhan gaalihii muslim ay la yaabtay, iska badaaba qowmiyadda Soomaaliyeed oo dunida daafaheeda ku kala firdhisane, dal iyo dibadna buuxaane. waan arki jirnay walaalayaal, waan maqli jirnay walaalayaal gaalo dhaxaysa kutubka Furqaan sax ma aha, hala nadiifiyo. waan arki jirnay dad siyaasiyiina dhulkan gaalada xukuma oo xil ka haya ku aftakoonaya ama dhahaya waa Nabi Maxamed ku dheeraanaya, ku xadgudbayana sallallahu alayhi wasallam. waan arki jirnay dad muslim isku sheegaya oo dadka laaynaya oo dhiigooda cabaya, waan arki jirnay oo dadka kufaareynaya. laakiinse waxa dunida maanta ay la yaabtay waxay tahay aan anigana doonaya laba kalmo inaan halkaan nigula wadaago fikirkeyga iyo aqoonteydana iyo siday fahmadeeda tahay nigula wadaago. islaan Soomaaliyeed oo tusaale wanaagsan laga doonayo inay shacabkeeda ay ayada mas-uulka u haysa dowladda Soomaaliya iyo dadka dhalinyarada ee maanta ayada isha ku eegaya inay tusaale fiican siiso. inay Faadumo Yarey maantay 4 kutub ee Ilaahay soo dejiyay risaalo ugu soo dhiibay 4 nabi ay nabiyaal loo soo dhiibay inay beeniso oo tiraahdo wax kama jiraan waaye, dadka Ilaahay aaminsan bagabi ahaan adduunka ku nool oo kitaabiga inay tiraahdo kulligood kitaabadooda waa beeniyey oo waa been, oo nabadgelyo iyo naxariis korkeeda ha ahaatee xaawo hooyadeena xaawo feertii Nabi Aadan calayhi wasalaam aabeena lagama suubin inay tiraahdo. 4taas kutub oo kala saabuurka oo loo soo dhiibay Nabi Daa'uud calayhi wasalaam iyo Towraaga oo loo soo dhiibay Nabi Muuse calayhi wasalaam, Injiilka oo loo soo dhiibay Nabi Ciise calayhi wasalaam iyo Furqaanka oo loo soo dhiibay Nabi Maxamed sallallahu alayhi wasallam. 4taas kutub way beenisay, waxay tiri waan bartayoo ayadoo ku ashtakoonaysa ama ay ku mucaaradaysa ee isleedahay dalalka shisheeyaha ama dadka naga jismiyad duwan ayaan magac uga raadsanayaa shirkan jaraa'id
oo astaanteeda saas ay hordhac u ahayd ay doonaysay inay kutubka furqaan ay aflagaadayso erigii iyo kalaankii ilaahay ay aflagaadayso ayaa waxaa la yiri qofkii dulmi wada ilaahay kutubkiisa qur-aanka asaa dhooranaya qofkii dulmi wada arinta waa la taraaraxdaa way la taraaraxdayoo 4 kutubba way beenisay waxay isdhaysay kutubka furqaan yaa dadka ka jaahil bixiyo si kale wax ugu dhigo haddana adigoo aflagaadeynaysa heer magaalsan yaa dad niga jismiyad duwan yaa ama niga diin duwan wax uga raadsa ayadoo isdhahaysa ayay taraaraxdayoo dadkii xataa ay magaca ka raadsanaysay kutubadoodii meeshii ugu aflagaadaysay bal wax yar ila dhagaysta walaalahayga qiimaha iyo qaayaha iga mudano soomaalinimada iyo diinta islaamka ay ku weyn tahay islaantan xilka dalka Soomaaliyeed dowladda Soomaaliyeed xilka weyn ka hayso tusaale intay u noqon lahayd ummadeeda Soomaaliyeed inay ku xadgudubtay aad ugu xadgudubtay dadka astaantoodu tahay aaminsanna laa ilaaha ila allah waliba aad waxaan uga baryaynaa culimada muxuu ahaay kitaabka ay aqrinayaan inay runta ka aqriyaano ayna dhihin haweenku guri waay meelay qur-aanka uga qorantahay annaka ma arkin haweenku guri waay xaawiye aadan isku halay ahaayeen feeraan laga bixiyo waa been meelay ku taalla ma jirto waa dad uu ilaahay wada abuur walaalahayga Soomaaliyeed intaas kumaysan ekeenine walaalayaal saad maqlayseenba waxay sheegtay inay nimanka iyo naagaha insaanka bini'aadanka ilaahay kala abuuray inay isku mid yihiin ay siman yihiin ay sheegtay laakiinse taasna way la sii taraaraxdayoo 4 kutub iyo dadka laa ilaaha ila allah wada aaminsan gaalo iyo muslim cadaan iyo madow ayay diimankoodii dhinacooda dhacday ayadoo isleh diinta islaamka kaliya mucaarado erigii ilaahay wax qaldan ka sheego magac ku raadso dad naga jismiyad duwan saanii sheegay oo niga diin duwan wax uga raadso samcad uga raadso sharaf uga raadso ayadoo taas astaanteeda ay tahay ayay 4 kutub iyo dadka aaminsan laa ilaaha ila allah jiritaanka ilaahayba yuhuudda 1 nasaarada 2 islaamka 3 muslimka 3daas diimood oo dadka adduunka maanta ku badan ay kitaabiga iyo muslimkaba kala kulligoodba ay dhinac uga dhacday dhagaysta bal walaalayaal ayadana waan igu soo yar celinayaa waliba aad waxaan uga baryaynaa culimada muxuu ahaay kitaabka ay aqrinayaan inay runta ka aqriyaano ayna dhihin haweenku guri waay meelay qur-aanka uga qorantahay annaka ma arkin haweenku guri waay xaawiye aadan isku halay ahaayeen feeraan laga bixiyo waa been meelay ku taalla ma jirto waa dad uu ilaahay wada abuur Faadumo Yarey siyaasi Soomaaliyeed xil dalka Soomaaliyeed ka haysa guddiga u qaabilsan gudoomiyaha guddiga doorashada iyo kala falaqaynta Soomaaliyeed oo tusaale la rabay inay u noqoto shacabkeeda taageersan ehelkeeda iyo qaraabadeeda dadkeeda oo idil ayaa meel waxay uga dhacday diinta islaamka ayadoo isleh qowmiyadda dhan oo adduunka ku hareersanoo madow iyo cadaan jismid kasta leh farac kasta leh wada aaminsan laa ilaaha ila allah taas mayse ku akeysanine kulli isaad arkayseen hadeertaan walaalayaalow xataa waxay tiri nimanka iyo naagaha way siman yihiinoo waa isku mid laa ilaaha ila allah maxamedan rasuulullah wax xadgudub saa'ida oo waxaan arki jirnay dalal gaale waxyaalahaasoo kale kasoo yeera ayadoo dabban ayadoo lasoo habeeyey ayadoo lasoo casriyeeyey ayadoo laga ashtakoonayo ama wax la taagsanayo la tiigsanayo lileh
waxaas baa nagu sababay inaan saas dhahno cabsi baa nagu sababtay anako saas dhahno anako saas ka ashtakoonano aan saas ugu dhawaaqnay laakiinse walaalayaal dal muslin ah dad muslinaa degan yihiin xil qof sheeganaya islaamnimo iyo muslimnimo leh waxaan aniga kasoo jeedo ku barbaarayo diintan xambaarsan haddana ilaahigiisa dhinac uga dhacaya oo haddana leh nimanka iyo naagaha way siman yihiin sidaan ognahay madow iyo cadaanba gaale iyo muslimba yaa way ognahay inuu inta xataa aanan aaminsanayn laa ilaaha ila allahu diin laawayaasha xataa way ogsoon yihiin inay nimankii naagaha isku mid yihiin oo insaan wada yihiin laakiinse ay samnaan karin waa la wada ogyahay laakiinse inta isleedahay samcad iyo xil sare iyo magac iyo waxbaad adduunyo xaalad adduunyaad ku gaari doontaa darajo adduunyaad ku qaadi doontaa ayay dadkii insaanka xataa kumaysan ekeysanine laa ilaaha ila allah dadka wada aaminsane xitaa waxay u gaftay dadka diinlaawayaashaoo leh anaka ayaan is abuurnay taas waxaa kasii daran walaalayaal aan haddeer doonayaa inaad yar ila dhagaysataan nin shiikh soomaaliyeed oo soomaalinimana xambaarsan dhahayana shiikh baan ahay oo diintan soo bartayoo dad baan rabaa inaan jaahilnimada aan ka saxo jidka toosan aan ajar uga raadsado yaa aakhiradeedana aan jannadii uga raadsado haddana leh naagtan waa naag saxsanoo naagtan hooyadan soomaaliyeed ama islaantan soomaaliyeed xilka dalka ka haysa iska badaaye naage xataa nimankay wax dheer tahay bal yar dhageysta ilaahay wada abuurtay أنا أبقى قيمنا يا حليميري وهي كمتها يدحلك أبو قيمها بدل الله الصومالي ما أنت إلا هاي وفاقونيها أنا أو قيمة قلة أو احترق أو جيس يدوي رجل الدمر sidaad maqlayseenba hadeertaan aan muuqaal iyo maqalba nii soo gudbiyey walaalahayga qiimaha iyo qaayaha mudane soomaaliyeed inta igu xiran iyo inta maqalkayga soo gaari doono fideogan arki doontaba wadaad soomaaliyeed ay diinta islaamka sheeganaya inuu ku takhalusay ama uu wax ka bartay doonaya dadkiisa caamada inay uu waxbaro ama macalin u noqdo ama kabiir u noqdo ayaa wuxuu sheeganayaa naagtii diinta islaamka dhinac uga dhacday islaantii soomaaliyeed xilka dalka soomaaliyeed ka haysay guddoomiyaha ururka doorashada soo socota ee soomaaliyeed hoggaanka u haysa oo ku magacaaban Faadumo Yarey walaalayaal ninkan aad hadeer arkayseen oo wadaad kushayga ayaan dhihi karaa haddaan yusra cadey shakhsi ahaan aan tilmaamo oo wadaadka isku sheegaya wadaad kushayga ah wuxuu moogan yahay yaa aan isleeyahay aqligiisaba yaa wadaadnimo iska dhaafay sankiisa intuu la eg yahay ayuu aqligiisana dheer yahay uu la eg yahay taas anoo ku magacaabaya odaygan soomaaliyeed ayaa wuxuu moog yahay fahmadiisana ka dhaadhicisiin weyday arkina waayay yaa fahmi waayana inaysan diinta islaamka kaliya islaantan ayna u gafin Faadumo Yarey ay u gaftay dhammaan insaanka aadamaha noolaha adduunka taas haddaan kasoo gudbo walaalayaal dowladda Soomaaliya dadka xilalka sare haya sidii madaxweynaha ra'iisul wasaaraha baarlamaanteerada xildhibaanada banka wada iyo wasiiradaba intaba afkiibaa juqda gabayo way ama kaakan yihiinoo ma waxaan isleenahay marka haddaan shacab nahay haddaan nila qiyaaso haddaan aqoonteeda nala wadaago walaalahayga Soomaaliyeed ma wax ku talagal dowladda Soomaaliyeed kulligood laaluush ku wada qaateen dadkana xukuma haddaan shacab nahaya mase waa wax ay cabsi
u geysa inay ka dhawaaqi waayaanoo maadaama ay 91dii sidaan ogeyn walaalaheena qiimaha qaayaha mudan madaxweynaheenii Soomaaliyeed uu sidoo kale 91dii qabtii ugu horeysay 30 sano abaartii iyo jajabkii iyo islaantii dhig cabadii yaa u sababay inuu yiraahdo sidoo kale insaanka bilaadanka nin iyo naag ayadoo asoo kala soocaya nin iyo naag magac loo kala yeelay haddana way siman yihiinoo waa isku mid culumadii Soomaaliyeed loo laayay wax walba yaa haddar 30 sano haddaan ka soo baxnay oo federaal soo galnay oo doorasho xor leh aan rabnay qofkii nagu hogaaminayay doorashadii xorta ahaa hadduu idan la geliyayo insaanka dhanba bilaadanka adduunweynaha uu nagu soo wada jeediyay bal yaabka iyo fajaca Soomaali haysata bal fiiriya walaalayaal fiiriya dadka xilalka waaweyn haysta mas'uuliyiinta isku sheegaya siday hoos u fiirinayaan ay diintoodii iyo insaanimadii ee adduunka ku joogeen iyo wajigay ku joogeenba intay dhooqo laga mariyay haddana kala fooraro yaa kulligood aanan waxba ka dhihi karin youtuberyaasha haddaan usoo dhaadhaco walaalayaal waan sii soconayaa waan sii fogaanayaa aqoonteedana waan ila wadaagayaa youtubeyada haddaan dhiisii dhaadhaco yaa sheekh badbaado oo sheekhadeena Soomaaliyeed ka mid ah si kastoon sheekh mutacalima u ahayn haddana waxa wanaagsan la wadaagi jiray asagoo leh yaa asagoo islaantan Soomaaliyeed bareer cad diinta ugu xadgudubta iyo insaanka bilaadanka noolaha dhanba yaa asagoo leh bal wax yar ila dhageysta yaa oo u yeelaya cilada u yeelaya bakoorooyin u cuskanaya leh way ka noqotay way yeeshay sababa u yeelaya ana lahayn bal wax yar asagana walaalayaal ila dhageysta adinkoo raaliya طبيعي tijaabada bilaadanka iskaga dhex jirtay oo diinta iyo hawlaheedaba aan saayara xooga u sii dhaxgelin anoo aaminsan hadana qof kasto Soomaaliya inuu diintiisa wax ka yaqaano anoo garanay hadana laakiin waa lagu kala xeel dheer yahay waa lagu kala cilmi badan marka xalqa yaabada dhinaca xeebta iyo afaafka hore in cilmiga shariicada islaamka wax ka ogtahay aysan xooga sida ugu sii socon laan haday xooga saa ugu sii socon lahayd arinta tan walaalahayga shacabka Soomaaliyeed walaalahayga taagta daran dalka kuwa ku nool iyo kuwa qurbaha ku nool dal iyo dibad ku kala faafsano samcad darida Soomaalinimada nin soo wajah shakhsi ahaan qof kasta way soo wajahday qof kastaba yaa calankaas iyo ciidaas sharaftiisii waa dhacday taas ogsoonaada calankeena iyo ciideeni sharaftooda waa dhacday hadiiba ilaahay lagu aflagaadeeyay haddii kalaankii ilaahay la yiri ilaahay ma saxsano aniga shakhsi ahaanteeda ayaa bedelaya naag leh oo Faadimo Yare lagu magacaabo hadeeba hoggaan ni haysa iyo xilni haysa dawladnimo hadii hoggaankiini dawladda uu fooraro oo kalaankaas hadal uga soo celin karin aad baan uga xumahay aniga shakhsi ahaanteeda Yusra Cadeey waana ogahay walaalahayga Soomaaliyeed kulli dhamaantina inaad ka wada xuntihiin laakiin ma dhihi karnaa waa nasiibana soo wajahday intaan anaka shisheeye isku soo adeegsanaynay intaan anaka iscunaynay intaan anaka dhiigeena iska cabeynay intaan anaka farta isku taagaynay anaka haddii aan heshiin weynay sidaas baan cadowga banaanka duurka isugu diraynaa laakiin taas waxaaba kasii daranba way jirtay inay nasiibo ilaahay nagu habsatay nasiibo ilaahay inay nagu habsatay subxaanallahu casa wajalla intaan ayaan doonayay walaalahayga qiimaha iyo qaayaha mudan inaan ila wadaago waa ismaqal dambe iyo fiidiyowga dambe biidnillaahi kariim waxaan iga tegayaa dhammaantiina salaanta qiimaha iyo qaayaha badan ee adduunka ugu sareysa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh